xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin mahad oo dhan waxay u sugnaatay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo inoo suurto galiyay inaan si nabad ah aan ku gudubno mid kamida waajibaadkeena dastuuriga maanta walaalayaal sida aad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu 15 bishan June ii magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha oo igu aaminay mas'uuliyaddan qaran si aan isla markaana fursadii siiyay si aan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaan ogahay in xilkan yahay mid culus una baahan karti aqoon hufnaan daacadnimo iyo adkaysi badan khaasatan xilligan aan ku jirno oo wadankeena ay ku habsadeen abaaro ba'an iyo colaad waxaan in badan oo noloshayda kamid ah u soo hadeeyay uguna soo adeegay dalkeena qaybaha waxbarashada oo aan macallin heerarka kala duwan ee waxbarashada ka soo ahaa waxaan ka soo shaqeeyay arrimaha bani'aadamnimada waxaan ka soo shaqeeyay xafiisyada dawladda heer state iyo heer federal labadaba arrintaas oo aan rajaynayo in ay siisay xog ogaalnimo badan iyo baahida dalkeena iyo dadkeenu ay qabaan taas oo aan rajaynayo sidoo kale in ay itusinayso meelaha fursaduhu ay ka jiraan iyo siyaabaha loo xalinayo caqabadaha waaweyn ee hortaagan xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin sida aynu la wada soconno waxaa maanta dalkeena waajahaya abaar ba'an oo barakicisay kumanaan Soomaaliyeed waxaan yaqiinsanahay in ay waajib nagu tahay in aynu dhammaanteen u guntanno gacansiinta dadkeena ay abaaruhu halakeeyeen walaalayaal aniga oo ka duulaya halku dhagii madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaan ka shaqayn doonaa xaqiijinta siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay horumar muuqdana ka taabagelisa arrimaha amniga garsoorka iyo cadaaladda la tacaalidda abaaraha dib u heshiisiinta wada hadallada walaalaheen Somaliland dimuqraadiyeynta dalka kobcinta dhaqaalaha maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka qabyatirka iyo dhamaystirka dastuurka ku meel gaarka adeegyada bulshada iyo dhisidda siyaasad arrimo dibadeed oo ku qotonta danaha dalka xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin marka aad codkiina isiisaan waxa aan si dhaqso ah u bilaabi doonaa wada tashiyo ballaaran oo aan la yeelan doono golayaasha dawladda qaybaha bulshada waxaana hortiina ka ballan qaadayaa in aan soo dhisi doono xukuumad tayo leh laguna soo xulay aqoon karti hufnaan khibrad iyo waayo aragnimo oo ka turjumaysa baahiyaha kala duwan ee dalka ka jira hirgelinaysa xaqiijinaysa horumar dhaqan dhaqaale oo baaxad leh haddii alla idmo xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal waxa aan si ixtiraam leh idinka codsanayaa in aad isiisaan codkiina kalsoonida si aan inagoo wada jirna u gudanno fulinta waajibaadkeena dastuuriga ah ee in hor yaalla waa mahadsantihiin